الله الرحمن الرحيم أصحابتاي سو دوادا meel kasto aad dunida aad ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixinadii ugu dambeeyay ciyaaraha saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenan fadlan subscribe noo saar leegta iyo shartana nagu dhiirigeli waana ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkaaga saaxiibayaal warkii hore war soo dhaaf waxaan haynaa maanta bishaaradaas kulanka u dhaxeeya Bayern Munich iyo Barcelona oo kulanka ugu adag lugta labaad ee Champions League ee xil ciyaareedkan xagaagan ayaan saaxiib waxaan idinka haynaa falanqeyn ama bishaaradaas qofkii suga kulankan u dhaxeeya Barcelona iyo nadiga lagu magacaabo Bayern Munich ee ka dhisan dalka Germany ee horyaalka Bundesliga qofkii suga kulankan u dhaxeeya Barcelona iyo Bayern Munich inta uu ku dhamaan doono waxaan siin doonaa cadad lacageed oo gaaraya $50 saaxiibayaal ma tahay in suga ama sadaaliya ciyaaraha waaweyn ama kulamada waaweyn saaxiibayaal ma tahay nin la yaraa oo nasiib badan ma tahay qof nasiib badan haddii aad tahay lambarkaaga meesha joogto iyo saadaasha nagu soo gudbi xaggan saaxiib waxaan kaloo ka codsanaynaa subscribe iyo like aanu saadid waana ku mahadsantahay saaxiib haddaad intaa noo samaysid saaxiib kulankan waa kulanka isbuucan uga adag Champions League wuxuu ka mid yahay in macnaha kulamada ama in koobka wax masada badan dhammaan qaaradda Yurub iyo adduunka oo dhan waa kulamo iyo kulan aad loo sugayo maadaama isku horimaanayaan naadiyaal aan iskooriyaal lahayn aan iskubad aqoon laakiin wax baan isku soo arkay Champions League marka saaxiibayaal wax muulisaa kulamadan ama kulankan u dhaxeeya Barcelona iyo Bayern Munich inuu noqon doono kulanka ugu adag gurbiyada oo dhan maadaama uu yahay kulan bil iyo dhagax ah adiga waxaan ognahay Barcelona iyo nadiga lagu magacaabo Bayern Munich inay lugtiko soo badiyeen guulo ay soo gaareen laakiin waxaan filaynaa kulanka inuu noqon doono kulan bil iyo dhagax ah waxaana nadigiisa hore ka hor imaan doona laacibka lagu magacaabo Robert Lewandowski oo ninka uga ciyaara nadiga lagu magacaabo Barcelona Lewandowski wuxuu soo dhaafay iska tagay nadiga ku dhasha Allianz Arena Bayern Munich waxaana halkaasi uu haleelay nadiga lagu magacaabo Barcelona marka saaxiibayaal kulankan waa kulan adag waxa iska hor imaan doona daafac iyo saaxiibkiis waxa iska hor imaan doona laba tababaro oo saaxiibo ah khabiir ayaa iska hor imaan doona saaxiibayaal marka kulankan sadaashada kaga qayb qaado kulankan u dhaxeeya Barcelona iyo nadiga lagu magacaabo Bayern Munich haddii aad weli la sii joogtid aad subscribe noo saarin fadlan subscribe noo saar waana ku mahadsantiin saaxiib la jaanqaadkeena